بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بمهد سكله maanta waxaan ku sugannahay madaxtooyada Jubaland State of Somalia anagoo ah qurba joogtii reer Jubaland waxa maanta martiqaad noo sameeyay qada sharaf madaxweynaha Jubaland oo nagu sameeyay aqalka cad Jubaland State of Somalia arrimo badan ayaa laga hadlay anagoo ah qurba joogtii also waxa maxay ahayd meeshaas xaadir ku ahaa sportska qoladii sportska ee maaragtay Jubaland waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in madaxweynahanagu uu qada sharaf noo sameeyay waxaan sidoo kale u faraxsanahay aad ugu faraxsanahay in madaxweynahanagu si toos ah uga hadlay interestiga Jubaland kaalinta loo baahan yahay inay maaragtay reer Jubaland qoliyaha ku dhaqan cariga maaragtay Mareykanka iyo waxay ahaydey wadamada kale inay qaataan sidoo kale inuu madaxweynuhu dhiirigeliyay dhalinyarta sportska oo uu ka hadlay hawlo fara badan iyo sidii ay maaragtay wadanka horumarkiisa uga qayb qaadan lahaayeen waxaa runtii iyadana in maaragtay la xuso mudan dhammaan qurba joogta wadanka timaaday maaragtay geesinimada muujisay maaragtay maalkoodii gashtay ka qayb qaatay wadanka horumarkiisa waxaan rabaa inaan baaq u diro qurba joogta guud ahaan waxaan idin sheegayaa anigu waxaan imaaday markii saddexaad for the last 7 months markii koobaad waxaan u imaaday shirkii halkan ka socday ee dib u heshiisiinta markii labaad waxaan imaaday shirkii cali masaarka haddana maxay ahayd kulankan ayaan ka qayb qaatay runtii isbedel aad u fara badan ayaan aragnaa oo maaragtay dawladda Jubaland ay samaysay markii aad timaado ayaa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya shalay iyo maanta marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jaaliyadka reer Jubaland inay ka qayb qaataan horumarkan socda inay wadankooda yimaadaan inay maal gashtaan waxaan sidoo kale ku dhiirinaynaa sida madaxweynuhu sheegay dhammaan maaragtay dhalinyarta sportska in hawsha ay wadaan halka ay ka sii wadaan. Assalaamu calaykum.